gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka shaqeyn doona xuska 22 sano guuradii ka soo wareegtay go'aansitaanka Soomaaliland ee 18 May ee fooda dhawaan nagu soo haysa gudoomiyaha gobolkan Cabdo Axmed Aayar ayaa waxa uu shirkiisan ee jiraa'id ku magacaabay magacyada 15 xubnood ee ka tirsan madaxda laamaha kala duwan oo gobolkan Awdal u matala xukuumadda Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid ah واقع بتجي من قارة سكيدية تبنكمي ونشر فول الجبر كأوضر كأول بريسي خاصة مغاربة الدولة ما تكمل الدولة ما بدي أروح على الرئية أنا أقول بدومي الجبر كا عبد أحمد وها بدومي هالتكملة سليمان ومية حقيقة فلنته الدولة الهوسة حقيقة فلنته الجبرك أجسمها مامك العقد الدولة الهوسة تريها غيرته الجبرك يسدوها وزارة الوفافنته يسدوها وزارة الأوقاف يدينته قدوميها قربك هولنك حزبك كلية gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka iyo shan xildhibaan oo golaha deegaanku ay soo magacaabayaan magacyadooda 15 xubnood weeyaan ayaa wax noqon doonaan guddiga qabanqaabada 18 May dhanka kale gudoomiyaha degmada Dila ee gobolkan Awdal Ibraahim Cabdi Xaaji oo weheliyaan qaar ka tirsan madaxda laamaha dawladda ee degmadaasi ayaa boorama u yimid u diyaar garowga xuska 18 May wuxuuna ka warbixiyay halkay u marayso howlaha qabanqaabada xuskaasi maanta gobolka waxaan u nimidnay diyaar garowga 18 May dhamaantayna maamulkii degmada hadii ay tahay gudoomiye maxkamadda gudoomiye degmada gudoomiye taliye saldhiga xogeeyihii dhammaan waan wada soconaa waxaan u nimidnay gudoomiyaha gobolka si aan ugu diyaar galoobi lahayn 18 May Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama